السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jira qof adigu jecel ama aad adigu bajeceshahay kuna sameeya wax walba aad ka dalbato. ma awoodo inaan iraahdo kaasi maahan jacayl, laakiin waa jacayl. haa, waa jacayl. sidoo kale waxaa jira shakhsiyo ku jecel balse aadan adigu ogeyn qiimaha jecel ay ku hayaan. maxaa yeelay adiga uma egtid sidii kuwa aad jeceshahay oo kale, ama uma egtid sidii qof kaaga dhow dadka kaleeta. waxaa kugu waajib ah inaad fahantid qofkaasi oo kale, maadaama uu niyad ahaan kuula jiro. waxaa jira qof in badan adiga ku jecel, adiguna laga yaabaa in aadanba in badan ogeyn, balse waxaad ogaanaysaa qiimihiisa marka uu garabkaaga ka faaruqo ama aad weysid. waqti badan kadib waxaad waqti la qaadan doontaa oo aad la fariisan doontaa nafsadaada, waxaadna ogaan doontaa qofkaasi waxa uu kuu samayn jiray oo uu kuu hayay waqtigii uu macaaga ahaa. adigoonan ka dalban isku day inaad fahantid macluumaadkan aan hadda soo sheegay. inta uu macaaga yahay qofkaasi oo kale, nafsadaadana hadda xasuusi, maxaa yeelay haddii aad xasuusisid nafsadaada xilli aad weysay qofkaasi, faa'iido kuuma ahan inaad markaasi nafsadaada fahansiiso qiimaha uu lahaa qofkaasi. si kooban, jacaylka dhabtaahi waa mid aanan qarsoomaynin, zamankuna mar buu soo muujinayaa oo uu ku egeysiin doonaa hadday doonto markaasi haba ahaato xilli la dhaafay waqtigiisii ku habboonaa. ilaahay waqtigidiina ha ka dhigo farxad, kalgacayl iyo nabadgelyo ay ku dheehan tahay. saaxiib, haddii aad ku cusub tahay subscribe, haddii aad ka mid idin asxaabta like dhac ku sii. waad mahadsantihiin saaxiibayaal. intaynu ku kulmi doono tani muuqaalkan xiga. fii amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.